kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad dunida ka joogtaan waa anigoo Zahaboy halkan aad daawaneysana waa maqal tube kusoo dhawaada muuqaalkana maanta haddaba inta muuqaalku gudagelin daawada haddii ay tahay marka ku horeysa aad channelkan soo boqoto subscribe saar sidoo kalena video like gare si aad u heshid muuqaalada bartan mar walbo aan soo gelino oo aad ka xiiso leh mahadsanid gabadhani aad u doodaan ayaa waxay sheegaysaa taliye hore dhimanayay taliye Farxaan Qorole ilaahay uu naxariistay jannada ha ka waraabiye ayaa waxay sheegaysaa inay ku faraxsan tahay dhimashadiisa haddaba gabadhani ayaa halkan waxay ku sheegaysaa inay ku faraxsan tahay taliye hore dhimashadiisa halkaas ay sheegayso inuu ka laayay dad kamid ah ehladeeda haddaba muuqaalkani ayaa fajac weyn iyo arrin badan oo murugo dhaliyay maxay tahay sababta keentay hadda gabadhani inay soo fadhiisto halkani ay muuqaalkani ee baraha bulshada la soo fadhiisato sidoo kale muuqaalkani ayaa wuxuu noqday muuqaalkii oo baraha bulshada qabsaday kadibna fajac weyn dhaliyay haatanba arintani ayaa murugo weyn iyo argagax dhalisay balse asla daawano gabadhani hadaladeeda waxa kamid ahaa sida tan dawladda xasan sheekh dawladiisa dadku wax dila maaha ma fahamtay wiilkaadi waxa dilay waxa waaye shabaab disha lagu leeyahay laakiin waa la shaqoolay waa la dilay waxaana dilay waxa waa wixii horay dadku wuxuu dili jiray ma fahamtay waa dadkii afweyne regime oo waxa ku sheegay aabahay la soo shaqeeyay isa sadaqan u soo weerareen isas Morgan iyo maxaa la Ali Samatar iyo waxaas iyo ay rabeen inay qarijiyaan marka waxa waaye waa wax looga bartay afweyne regime wixii la soo shaqeeyo way dilaan marka tacticadaas waxa isticmaalo waa dadkaas marka waxaadan u dhihin markii la soo isticmaalay adeer waxaan rabaa inaan ku sheego wiilkaada waa ayga farmaajo uu leeyahay ayga waxa lagu yaqaanaa meeshii qabal yiraahdo aadaya oo maxaa la soo ataagareenaya marka wiilkaada nin soo aqli badan ma ahayn marka waxa waa ayaan daro adigii dhamaayo dhalay inaad maanta meel la soo fariisato oo iska dhigto inuu wiilkaada wiil fiican ahay oo ana oyso waxaan aniga meeshan u soo galay falcelinta uga sameeyay sadaba sidaad muuqaalka ku arkaysaanba gabadhani ayaa waxay sheegaysaa inay ku faraxsan tahay in la dilo ayna disho al-shabaab ay disho taliyaha dhintay ilaahay ku naxariistay Farxaan Qorole arintani ayaa fajac weyn dhalisay haddaba daawada muuqaalka waxa idin tabinayay anigoo Zahaboy halka daawaneysana waa maqal tube inta ku kulmi doona muuqaalka xiga anigoo Zahaboy idinka tagayo sidaas iyo nabadgelyo.